بسم الله الرحمن الرحيم سو دhowaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga magacaygu Cabdinaan Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com ku soo dhowaada casharadeen xiisaha lahaa ee quick fix aan ku sameeyno Jing HD waa 10 ama 10 daqiiqo ka yar isla markaana useful u ah ardayda wax ka barata shabakada sologroups.com waxa dhacda mararka qaarkood in iPhone ama iPad ay soo qaban kari waayaan computerkaaga waxa dhici karta in drivers ku maqan waxa dhici karta in cable-ka aan shaqeyn waxyaalo badan ayaa jira tusaale ahaan haddii aan furo iTunes halkan isla markaana aan soo qabto cable-kii oo aan geliyo oo aan idhaahdo accept iminka cable-ka ayaan geliyay waxaan idhi wuu ii soo baxay wuxuu leeyahay iPhone-ka ma gelin kartaa ayuu leeyahay ma loo ogol yahay computerka inuu ku xirmo allow ayaan leeyahay isla markaa waxba kuma arko halkan ma soo baxo marka runtii madax xanuun aad u far badan ayuu leeyahay waxaa kaloo jirta third part software iyagana loo isticmaalo IM2 for iPhone transfer oo kale loo isticmaalo ma soo baxayo waxaa la rabay haddii la geliyo systemka in si automatic ah computerka uga soo baxo marka waxaa dhici karta saan horey kugu sheegay cable-ka inuusan ku xirnayn accept inaan la dhihin waxyaalo badan ayaa dhici kara laakiin waxaa jira qaab aad u fudud oo dhibka meesha ku imaanaya oo ah dhanka iyo driverka marka waxaa loo baahan yahay file this PC haddii computerka aad isticmaalaysid uu yahay computer Windows 10 saa ku aragtaan Apple iPhone waan u jeednaa laakiin halkan ka soo bixi maayo wax upload laguma samayn karo wax lagama dejin karo wax laguma dari karo saagood waxba tari maayo kan halkan yaala haddii aan furo haddii saan u furo DCM-ka wax walba halkan ayuu u yaala sawiradii wax walba ay ku jiraan laakiin lagu arki maayo wax kale oo dhanka oo iTunes-ka ama third part software lagu xiri karo marka halka timaadid siga ayaa tegaysaa waxaa tegaysaa program files ayaa tegaysaa common files ayaa tegaysaa markii aad tegtid common files ka timaadid Apple ayaa tegaysaa Apple markaa tegtid mobile device support ayaa tegaysaa marka halkan driverska ayaa la doonayaa kuwan ayaa ka maqan oo update ah ayaa ka maqan marka si aad u raacdid halkan ayaa tegaysaa marka sidee loogu daraa kuwan aad ayay u fududahay star ayaa tegaysaa right click ayaad PC leedahay waxaad leedahay properties kadib waxaa kuu soo baxaya device manager markii kuu soo baxo dhankan ayaa tegaysaa iminka sidan haddaan aan furo waxaan tegayaa halkan ay ku qoran tahay portable device ayaan tegayaa hoostiisa Apple-ka waa kan right click ayaad leedahay update drivers ayaad leedahay halka dusha ma tegaysid waxaa leedahay browse isla meesha ayaa tegaysaa meeshaasoo ah haddii aan tago halkan ood ujeedaa wuxuu ku jira program files common files Apple mobile device support device marka haddii aan ku laabto mar kale halkan ayaan ka tegayaa oo ah siga ayuu yaalaa siga kadibna wuxuu yaalaa program fileska program files marka kasoo tago halkan kowa kan labaad waa Apple kan saddexaad halkan soo geliyo mobile devices driverska dushiisa ayaa tegaysa driverska oo sidan ah okay ayaad leedahay next ayaad leedahay kadib dhab ayuu ku siiyey waa ku qabtay minimas ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay passcode-ka tabcan waa inuu furnaadaa si uu xasuusto retry ayaan leeyahay isla markii wuxuu sameynayaa wuxuu soo qabanayaa uu raadinayaa iPhone-kiisa ku aragtaan si automatic ayuu soo qabanayaa dhanka iTunes-kana isagana si caadi ayuu soo qabanaya marka muhiimaddu waxay tahay kan in uu sidan u soo qabto software kale ayaa jirta aanu isticmaalno isagana waan eegaynaa oo third party ah oo shabakada sologroups.com ku jiro wuu raadinayaa isla markii wuxuu soo qabanayaa si caadi ayuu soo qabanaya ujeedaan waa iPhone 7 oo ah versionka ugu dambeeya marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa oo fudud haddii computerka ama laptopka uu ku soo qaban kari waayo dhanka iyo iPhone-ka iyadoo wax walbana ka yihiin waxa muhiima passcode-ka waa inaad gelisaa waa in uu furnaadaa iPhone-ka ama iPad-ka mar walba uu furnaadaa haddii kale systemka aqoonsan maayo waxaan filayaa in aad ula dhacdeen casharkan yar ee aanu ku baranay quick fix oo lagu sameeyo Jing HD waa 10 ama 10 daqiiqo ka yar oo aad useful ugu ah ardayda wax ka barata sologroups.com anigoo ah Macalin Cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu